sanadkii 2006 maxaa ka dhacay dunida waa habeen dadku dhanaa shaashada indhaha ku hayeen oo ay sugayeen ama ay daawanayeen ciyaar cajiib ah waana ciyaartii kama dambaystii koobka adduunka ee 2006 waxaa finalka isugu soo baxay qarankii weynaa ee Faransiiska iyo weliba qarankii weynaa ee dalka Talyaaniga waxaa garoonka ka soo dhex muuqday oo ciyaarayay xidigyo fara badan oo markaasi caan ka ahaa dunida xidigii ugu cajiibsanaa garoonka waxa uu ahaa sanadii Zidane waxa uu ahaa nin aad u degan oo weliba ixtiraam badan laakiin dhankiisa kale waxa ka ciyaarayay nin aad difaac u ahaa oo weliba inta badan jeclaa inuu dhibaateeyo ragga caanka ka ah markaa naadiga ka soo horjeeda ama qaranka ka soo horjeeda magaciisa waxaa la odhan jiray Matresi markaliya ayuu caayay hooyadii iyo walaashii Zidane waxa uu maqlay hadalka kadibna dib ayuu ugu noqday waxa uu ka galay madaxa dhinaca caloosha taasoo ka dhigtay in Matresi uu isku yaaco kadibna uu dhulka ku dhaco dadku in badan ayay garan waayeen si wax u dhaceen 10 daqiiqo oo xidhiidh ah ayay kubaddu taagneed oo ay hakad ku jirtay caalamwalaha iyo sirwalaha ayay iswaraysanayay waxay iska waraysanayeen sidii wax u dhaceen laakiin mar dambe ayaa loo sheegay in Zidane uu madaxa ka galay Matresi sanadii Zidane waxay noqotay ciyaartiisii ugu dambaysay ee uu ka ciyaaray kubadda cagta waxaana uu ku soo gabagabeeyey kaarka casaanka ah ama guduudka waxaa la arkayay sanadii Zidane oo ka baxaya garoonka isagoo weliba aad u cadhaysan kamaradu waxay qabteen isagii baal maraya koobka adduunka markaa lagu tartamayay